Ethiopia emergency ku timi xoog ku qabsatay wadaga arkayna still magaalo maalba magaalo laga saaray Ethiopia Soomaaliya ma haysato Ethiopia Soomaaliya waa dawlad ku timi heshiis ay la gashay dawladda بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج كيني ميسانكا سياسة وانو كسو قادن دونو dood aan uga hadlayno khilaafka siyaasadeed ee ka jira gudaha Soomaaliya ama magaalada Muqdisho doodeena caawa waxaa marti noogu ah Maxamed Cali Bilaal oo ka socda xisbiga Hanolaato waxaa kale oo nagala qayb qaadan doona barnaamijkeena Cabdiqaadir Khaliif Jaamac oo loo yaqaan Telegrace oo isna ka socda Somali Peace Council haddaba waxaan jeclaan lahaa inaan guda galno barnaamijkeena su-aasha koowaad waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo Maxamed Cali Bilaal oo garabkayga fadhiya Maxamed sidee kula muuqataa fikrad ahaantaada khilaafka siyaasadeed ee ka jira gudaha Soomaaliya ama magaalada Muqdisho dadkii Soomaaliyeed markay dawladda ka burburtay ayaa khilaaf bilaabmay khilaafkaas wuxuu noqday khilaaf soo jiitay muddo dheer oo qaatay ilaa 12 sanadood khilaafkii kadib waxa la soo sameeyay marka dadka Soomaaliyeed dhexdeeda ayuu khilaafku markaa ahaa cid kale oo ajnabi kuma jirin oo ma soo faragelinin muddo ka bacdi waxa la sameeyay dawladdii Arta kadib waxay ku soo noqotay Muqdisho Arta waqtigii markay dhamaatay kadibna waxa la sameeyay dawladdii Imbegati markaas Soomaali halka isku wada tagtay si Arta looma wada dhamayno xogaa waa laga kala maqnaa laakiin tii dambe macaadin weynihii ayaa tagay oo isugu yimid Imbegati halkaas lagu soo sameeyay dawlad ummadda oo dhan ka wada mid tahay qabaa'ilka Soomaalida oo dhan halkaas ay isugu yimaadeen marka kadib dawlad ku meel gaar ah la sameeyay dawladda ku meel gaarkaas marka aad baa loogu hanweynaa waxa ay dawlad ummadda oo dhan rajo ka qabtay in Soomaali ay ku soo celiso sharaftooda iyo nidaamkoodii marka kadib waxa dhacday in dawladda Ethiopia ay soo gashay dalkii oo ay cadaadis iyo dib iyo rabshad bilowday halkaas weeye maanta halkaan Soomaali iska ahayn khilaafkii isu bedelay Soomaali iyo Ethiopia taas way ay maanta dagaal ku socdaa oo dheeraada وهاجاك وما سنتهاي محمد علي وكوس ونقطنا سيدو كله وحنا نقل قادني برنامجك عبد القادر خليف جامع تيليجريس أو سنة بدأت فدية عبد القادر واد مغليسي محمد علي بلال سيدو عرب كل فتاي إيو سيدا وأرك خلاف كسياسة كتيرة كدها مقدشة وعرب كل فتاي إن دبكو قوين أيهين عيد مدى إثيوبيانك إن أدي فكرة هانت هذا محي كلها تهاي والله بلال waxyaabo aan ku raacsanahay way jirtaa waxyaabo aan ku raacsanayna way jirtaa runtii khilaafka Soomaaliya ka jira ma ahan indhaha in la iska tiro ma ahan khilaaf Soomaaliya iyo Ethiopia kaliya ay isku haysto khilaafka waxa isku haysta Soomaaliba ay haysato Soomaali hadaysan ayagu isburburin oo ayagu aysan isku soo aysan ixtiraamaan oo sharaftoodii iyo dadnimadoodii ay dhowrtaan Ethiopian meesha ma imaadeen sababta uu Ethiopianka ku yimidna Soomaali baa keentay Soomaalidu dhaqankii iyo sida ay u dhaqmaysay iyo sababtaas sababtay in Ethiopian yimaadaan iyo ciidamo kale oo ka socda African Union marka Soomaaliya waxay noqotay meel daawacan oo dhiig ka dareerayo marka qof kasta baa yimid oo inuu wuxuu rabaa inuu caawiyo oo dhiigaas ka joojiyo marka sababta ay Ethiopianka kaliya maahan Ethiopianku way naga baxayaan hadaan anagu heshiino waxa jirta dad interest khaas wata Soomaaliya oo kor taagan nabadda marka hadii Soomaalidu heshiiso oo nabadda la helo Ethiopianka iyo UN-ta iyo African Union-ka iyo kulli way naga baxayaan hadii dib u heshiisiintan laga run sheego oo la dardar geliyo dibashisinta ay heshiiyeen dawladda federaalka iyo isbahaysiga dib u horeynta may kula tahay in hadii heshiiyaan labadaas garab in xal la heli doono oo khilaafku dhamaan doono iyo dagaalada maya lama aha because dawladda ku meel gaarka ahay Ethiopian waay Ethiopia hal kala saaco dawladdii waxay noqotay dawlad u adeegaysa Ethiopian
waan inna ummadda soomaaliyeed wax allaale waxay shuqul ku leedahay aan wadin haddii ay wado in la heshiiyo iisi baa lagu heshii kari lahaa waad ogeed 6 bilood maxkamadu dhulka qabsadeen sida ay iyadoon ciidanba loo baahneen casar loo heshiiyey oo magaaladii ammaankeedii iyo nabadgelyadeedii iyo wixiiba ay soo noqdeen maxaa keenay ciidan shisheeye la keenaba soomaalida dhexdeeda heshiin kari lahayd marka waxa weeye dowladdu waxay noqotay dowlad u adeegaysa dad shisheeye oo aan u adeegayn dadkeedii ilamaba keentay ciidankan iyo waxa kan Etoobiyaankan qorshe dheer weeye oo Etoobiyaanku ay wateen ilaa shirka lagu qabtay halkaa ilaa hadda balaan taxan weeye oo ilaa aan weli guntiisa la gaarin waxaa jirta in dowladda federaalku ay ku casumeen ciidamada Etoobiyaanka iyo kuwa Afrikaanka kale haatan ku soo Muqdisho iyagu u yeeran yiraahdeen nagala qayb qaata xalinta wadanka iyo si loo joojiyo dhibaatooyinka iyo dagaalada markasta ka soo cusbanaada wadanka haddii dowladdii ay awood u weydo halkii Muqdisho ay samayso haddii u yeeratay iyadu dowladihii dariska ahaa ama Afrikaanka ahaa miyay ku qaldan yihiin bay kula tahay waxaa jirtay in nimankii hogaamiye kooxeedyada ahaa giddigood dowladda ka mid ahaayeen wasiirre ahaayeen nin wala position buu haystay waxay ahayd in iyadoo dib heshiisiintii laga dhabeeyo oo si fiican ilaa waxa ku hortaagnaa iyagun bay ahayd iyagina dowladdii bay ka mid yihiin sababta ciidan shisheeye ugu yeedhaysa maxay tahay qaladka waxaa keenay markii Cabdillaahi Yuusuf October 2004 la doortay habeenkii lafteedii ay khudbadii ceremonianka loo sameeyey ayuu ku dhawaaqay 20,000 oo ciidan in la keeno oo ajnabi ah 20,000 ajnabiga ilaa meel kuma ogeynay ciidan Ethiopian buu soo ku talagalay in la keeno marka waxaan qabaa balaanku inuu ahaa balaan kasii horeeyay dib heshiisiinta intaan dowladda la soo sameyn waayo nimankii markaas laga baqayayba xukuumadda bay ka mid ahaayeen maxaad ka baqaysay maxaad ciidanka loo dalbanayay dabadeedna waa la kala shakiyey nimankii hogaamiyaasha ku jiray dowladda way shakiyacsaneen 20,000 xagaa loo dalbanaya hayaay oo idinkaaba la qabsanaya arrimaha ciidankaaga lala wareegaaba shaki baa galay nimankii dowladda ku jiray that's why ay bahashu u shaqeyn weydo markiiba laba garab lagu kala jabo waxaa jirta heshiisyo dhowaan dowladda federaalka iyo xisbigan isbahaysiga dib xoreynta ay ku wada saxiixdeen Djibouti iyadoo weli ay wada hadaladii ay socdaan iyo heshiisiintii waxaa jira in la isla soo qaaday in ciidamada Etoobiyaanku ay ka baxaan Soomaaliya marka may kula tahay haddii ciidamada Etoobiyaanku ay sidaas ku baxaan heshiiskaasna la dardargeliyo in ay soo afjarmayso khilaafaadkaasi waa baxayaan ciidamada Etoobiya balaankoodu ciidan baxaya maaha oo ku baxaya 2 bilood 3 bilood 4 bilood waxaan la qabtay oo dhan waa wax aan waxba ka jirin waayo balaankoodu waa balaan dheer hadda media xalbada lagama sheego anuu nin xoogagaalana dowladda wasiir ku-xigeen baan ka ahaa baarlamaankana xildhibaan baan ka ahaa wax badan baan ogahay Etoobiya sidaa mid ku baxaysa maaha waa balaan dheer waa qorshe dheer waa nidaam dheer nin General Gabriel ayaa wadanka haysta Gabriel shirkii dib heshiisiinta 2 sanadood buu nala joogay shirku ka qayb gala nin ogaa inuu jaran yahay idimo ogeyn anu waxaan u jeedaa safaaradda u shaqeeya si loo balo xildhibaan kasta iyo nin kasta oo dowladda wax ka noqonayaba tireen baa halkaa lagu soo siiyey ka bacdi markii dalka la soo galay jaran isagoo ciidamo wato soo galay haddana waa ninka kaliya ee laga amar qaataa ilaa madaxweynaha ilaa barsaabka ilaa muxuu ahaa badwalow General Gabriel waxaan gooyin ciidan ma goyso waxyaabihii ugu yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa General Gabriel jooga xamar ban xamar tigi